muqdisho waa inay wax ka qabataan qaniisiinta dhaqan xumo qowmuluudnimo iyo fasahaad aad u xun ayaa ku sii faafaya Soomaalida baraha bulshada iyo deegaanada dhammaan qaniisnimada la faafinayo ee waxa caadiga ah laga dhigayo iyo shakhsiyaadka ugu horeeya iyo sidoo kale qaabab qarsoodi ah oo dhaqankani gudaha dalka lagu fidinayo ayaa ku soo koobayna warbixinteena ugu horeysa ee Somali Social TV oo aan si joogto ah idinkula wadaagi doono xogaha arrimaha bulshada iyo baraha internetka balse marka hore daawadayaal sheer gareeya muuqaalkan idinkoo meel walba gaarsiinaya follow soo dhaha facebookeena Somali Social TV idinkoo subscribe dhahaya YouTube-keena waa hagaag aan ku bilowno warbixinteena waxaa aad u soo batay waayahani dadka Soomaalida ah ee si hoose iyo sida shaacada ah baa u faafinaya dhaqan xumida ragga isfuulaya waxaa loo yaqaanaa qaniisnimo ama qowmuluudnimo oo ah wax aad u xun diinta meel fog gaarsiiyey dhaqankeena suubanna meel ka dhac ku ah TV-ga Somali Social TV ayaa ogaaday in dadka dhaqamadani leh ay gaarayaan ilaa 10 kuwaasi oo isticmaala baraha bulshada sida TikTok-ga iyo Facebook-ga balse ay ugu cadcad yihiin kuwa magacyadooda kala yihiin Blue Makeup Nunkish Deqow Gariiraye Cilmi iyo kuwa kale oo aad u badan balse Soomaaliya ka digtoonaada oo xitaa ka joojiya kommentiyada iyo like-ta aad u saaraysaan sheer gareeya muuqaalkan si dadka nuucaasi ah meel looga soo wada jeesto xogta uu helay Somali Social TV ayaa lagu helay cadeymo ku saabsan in qaniisiin caalami ah ay dhaqaale siiyaan kuwa hadda aan ka hadlayno ee Soomaalida si ay bulshadeena qiimaha badan ugu faafiyaan dhaqamadan dad badan oo muuqaalkani Somali Social TV daawanaya ayaa been u maleynaya balse nala arka muuqaalkani Ayub Carlo ma guursanaayo diilowla Ayub Carlo waa quruxloo Ayub Carlo caatada waan ka helaa raga caatada waan ka helaa midda kale alaabo kal fiican weyn baa ku yaal subxaanallah xitaa gabadha iyo dadka kommentiyada bixinaya ayaa looga baahnaa in ay warka nuucaani ah si degdeg ah ugu falceliyaan balse shakhsiga nuucaasi ah in lala shaqaysto waa mid khalad ah ayay leeyihiin dadka caqliga u saaxiibka ah waa yaab iyo amakaag mar kale وسيست أنا عمل الله بكهد أنا وعي هاي ساعة ما نقبل نسمعه yarkan soocaabka ula joogaa hal ii soo raadiyo yaa si fiican mu aragteen wuxuu sameeyaa guska intuu soo kacsado ayuu haddana lulaa buu lulaa siigu igu dilay saan siigaystaa waa dhintay haddana wuxuu leeyahay magaranaya guskii mashruumka magarano afka ka weyn madaxa hore ka weyn ayuu leeyahay aad bay u qurux badan tahay waan ka helaa marka halkan buu la joogaa hal ii soo raadiyo aad baan u jeclahay waan islaamay curadka xaafadda uu yiri wax allaala waxaan ku hadlayay qajaarada aan dalbanayay branki bay ahaayeenba laakiin arinta ayada ah kuwii dhageysan lahaa maysan dhalan mana dhalan doonaan master ibabiow ama curadka xaafadow aniga hal talaan ku siinaya dabaqa Mareykanka ugu dheer waa taqaana meeshu ku yaalo abow abayow dabaqaas iska soo tuur sababtoo ah inaan noolaataba wax macno ay ku fadhida malahan waayo waxa sameysay wax Allah subhanahu wa ta'ala badiis oo ugu dhaartay taasoo ahayd baday hadii aadan ii amaan gelinin umadeeda waxaan ku cadaabi doonaa sidaan u cadaabi lahaa khaniis hada والسلام way badan yihiin shakhsiyaadka qaniisnimada faafinaya waxa ujeedkooda la sheegay in ay bulshadeena dhexdeeda wax caadi ah kaga dhigaan arimahani ragga damcaya bal haddana midaani nala arka oo ka digtoonaada bulshooy habargad hal yani qaniiska ka soo baxay laakiin hal aniga ka soo baxay subxaanallah mar kale daawadayaasha Somali Social TV nala eega waxa shakhsigani uu leeyahay bilo walba inay soo hadasho ujeeda talabaadaan ii soo hartay
يا نا بكتيرياش معناه دوش نيسارن نعرف بعد غنيس هذا كجرو دلا دشة نا بحد ترك بالأخلاقات سنجيدا الفرع هذا وصل عيش عمرات ما كجرو نا دو علم دي ترتي مريا حسين يا بالأخلاقات warsheer gareeya oo Soomaalida oo dhan aan u sheegno in aynu maya dhahno oon diidno oon iska celino shakhsiyaadka maanta farakutiriska ah ee khaniisnimadan ugu faafinaya balse haddaan hadda lala dagaalamin way sii badan doonaan intaasi ayaa ku soo koobaynaa warbixinteena koowaad ee Somali Social TV fadlan aragtidiina TV-ga cusubna la wadaaga mar walba siina sheer gareeya muuqaalkaani nabadgelyo